ما akhrisay dastuurka. والله هرتا wax walba marka inta aad dhaxgelin oo afka lagaaga sheega ama aadan maxayna aad juhdi gelin inaad aragtid ama akhrisid wax aad u fiicnaan ka aaminsan tahay laakiin markii la dhaxgelo waxay umaleelahay hadii aniga buuga waan akhriyay wax badan ka akhriyay qodob badan jiraan aan ka akhriyay aniga buuga hadii la macnaha ay maxay tahay sheeg la isku raaci lahay qodobadaas ee la tixgelin ama hirgel lahaayeen waxa aaminsanaanahay inuu wadankeena boqolkiiba boqol oo wuxuu noqon lahaa wadan horumarsan uu noqon lahaa waan akhriyay wax badan sida haweenka kale markaan fiiriyo ama dhalinyarada dastuuriyan waxba xaquuq kuma laha wuxuu qorayaa dastuurka in gabdhaha talada dalka ay ka qayb qaadan karaan miiska talada inay imaan karaan laakiin ma qeexayo waxa ay noqon karaan iyo waxa aan ku leenahay marka waxay ila tahay laga mana fiirsan dhalinyaradana bataatan ba meel kaga qoriyeen ma arkin in lagu xusan maahan marka bulshada waxa ugu badan dhalinyarada iyo haweenka waxayna ahayd in ahmiyad gaar ah la siiyo marka labaad in loo dhigo oo maaragta loo keeno cashar ahaan ay u qaataan waa maxay dastuur ujeedada laga leeyahay maxay tahay muxuu ku tari karaa yaa iskale marka dadka qaar waxay aaminsan yihiin marka weydiisid inay iska leedahay dawladda waxa la dhaho oo madaxweyne iyo prime minister iyo xildhibaanada kaliya in lagu hagadada aaminsan marka waxay u baahan tahay daadejin sida hadda laakiin waqtiyada ugu dambeysay waxaan kamid ah dadkii maaragtay wuxuu u baahan yahay wada tashi weyn ee dastuurka bulshada Soomaaliyeed la isugu keenay kaas oo ummadda maaragtay wax badan oo aan ka aqoonin xataa markaas aan ka bartay oo ahayd in ummaddu wada leedahay bulshada qaybaheeda kala duwan laga qayb galiyay marka wasiirka dastuurka iyo runtii wasaaradda waxaan ku amaanayaa in maanta ay bulshada in badan hadda fahamsan yihiin waa maxay dastuur iyo iskale marka dastuurku waa sareeyaha dalka iyo sharciga waa kan ka sareeya ummadda lagu hago ayada iskale aniga iskale adiga leh waa wada leena wax anagu aan wada leena haddana kan wali buugis maana arago sadar muuqdo su'aal ka dhambalay qofka wax akhriso ayad wax dareemi kartaa laakiin sida aan telefishinada iyo ka dhowro iyo magaranaysa dad ka hadlaayo iyo dastuurku ilaahay dastuur uu nasiyo kutubka ilaahay baba ilaahay nasiyayba oo dastuur noo aba laakiin dastuurka waa wax Soomaali ku heshiiso oo sax ah qofkii ku xad gudbana uu qaban karo dastuurku saas waa dastuurku si aqligayga ilaahay waxaan ku ogahay inaan leeyahay xaquuq aniga inaan markay dhacdo doorasho codkeygana aan dhiibi karo wax dooran karo leena dooran karo aan ka aaminsanahay dastuurka oo qof muwaadin oo Soomaali aan ahay